ma jira nin iska bulo xoolale ma jiraba inta badanna waxa la ogyahay qofku wuxuu xoolo yeeshaa saydo markuu guur iyo reer samaysto ilmo u dhalo xoolo yeeshaa iska bulo taajir oo hanti ka xaynaya ma leh xoolaha ilaahay ku siiyay ilmahaada iyo qoyskaada ka bilow gabadha laftigeeda waxa la yaabaa gabar barakaysan oo biyo xawo oo tay xoolahanba ayada sababteed ilaahay kugu siiyay markaas haddana inaad ka qadisood qolo kale ku qaraaba kiish wax shaqeynaya ma xafladaha waxa laga yaabaa inuu u soo wado iyo meelaha dalxiisyada inuu soo wado gabdho wuxuu leeyahay xariir baa naga dhaxay wada sheekays xaaskiisii ilmihiisina ka soo dhuunto arintaas ayada marka waa fadeexa iyo sharaf dhac weeyaan waxa taayna waa laga daba tagi doonaa waana lagu og yahay waxa la rabaa dhaqanka ayada ah waa dhaqan waxa weeyaan khiyaano ah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wa hal tunsaruuna wa turzaquuna illa bi du'afaikum oo miyaa la idinkugu hiilinayaa oo la idinku irsaaqayaa ilaa dadka ducafada ma ogi dhaqaalahan aad ku ciyaarayso gabadhan ka qadinayso oo dadka kale aad ku qaraaba kiilayso qayb bay ka leedahay xuquuq ayada ay wax ka leedahay way ilmaha naftigooda dhaqaalahan wax bay ka leeyihiin waxa weey inaad ka xasadood ka qaraysa ma banaana ayaga sababtooda lagugu siiyay maxay la waa rizq qoondadoodii baa ku jirta meesha maxay la qof walba rizqiisa waa qoran yahay ma ogtahay meeshan waxa weeyaan waa irsaaqad wada qoran oo qof walba ilaahay uu qaar siiyay adigana lagugu dhiibay waxa la rabaa inaad u bixiso sidii xoolahan lagugu dhiibay qof walba xaqiisa inaad u siiso u gaarsiisaa laga rabaa inta tabartaada laakiin inaad dad kale geed korwaab noqoto dad kale aad ku qaraaba kiisho dad kale la aqoon aad ku dhaqaalayso cidaadii ilmahaadina laga yaabo inay dayacan yihiin oo banaan jiifaan gabdha aad biibitooyin ku geyso kula sheekayso u qosasho ama saaxiibo aad maalin walba aad waji uga raadiso inta badanna waxa la ogyahay qofku wuxuu xoolo yeeshaa saydo markuu guur iyo reer samaysto ilmo u dhalo xoolo yeeshaa ma jira nin iska bulo xoolale ma jiraba hadduu jirana waa wax hadda cidoodii uu ka soo dhaxlay iyo dhaxal ugu imaaday ma ogiye iska bulo taajir oo hanti ka xaynaya ma leh xoolahaani waxay ku imaadeen waxa weeyaan reerkan iyo qoyskan iyo ilmahan waxa laga yaabaa hal anigo biixo oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu barakeeyay inuu reerka ku jiro xoolahan dhanba ilaahay sababtiisa uu kugu siiyay gabadha laftigeeda waxa laga yaabaa gabar barakaysan oo biixo oo tay xoolahanba ayada sababteed ilaahay kugu siiyay markaas haddana inaad ka qadisood qolo kale ku qaraaba kiish wax shaqeynaya ma waxa dhici karta haddii xoolahaasi xaqooda aadan ka bixinin cidda xuquuq xaq u lahaydna aad wax ka siin ilaahay ka qaado ka baabi'iyo waxa jiro dad badan oo hanti lahaan jiray oo hantidoodii ay baaba'day waxaana suuragal ah inay dadkaasi dhibaatadan uga timid cuquubo ay ka galeen xaaskooda iyo ilmahooda cuquubo ay ka galeen uga timid baa laga yaabaa maxaa yeelay xaaskaada xaq bay kugu leedahay ilmahaadana xaq bay kugu leeyihiin markaad khiyaano samaysood ilmahaadii iyo aad dayacdo xoolahaadina laga yaabo cid kale inaad ku qaraaba kiishood hoteelle iyo aad ku geyso iyo dalxiisyo aad ku geyso cid aan mudnayn aad kula baashasho ama qaraabo aan markaasi ayada ah ay ilmahaada uga xaqnimo badan aad siiso waxa dhici karta xoolahaani ayada ah inay ka baaba'aan dad badan arrintaas ayada way ku dhacday waxa la rabaa marka xoolaha ilaahay ku siiyay ilmahaada iyo qoyskaada ka bilow Bidaan Production waa hoyga sawirada iyo muuqaalada qurxoon. Haddii aad ka fikirayso qaabeynta iyo qurxinta xafladaada, waxaa baahidaasi daboolay bahda Bidaan Production ku dooro xaflad bilan iyo ballan xilliyeysan.